السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal kusoo dhawaada waa xubinteennii murtida maanta. xubinta murtida maantana waxaa badanaa halkan ka soo jeediya aniga oo ah Cabdinaasir Axmed Barkhalle. xubinta murtidu waa xubin joogta aan ugu talagalay inaan hawlo fara badan kaga hadlo. waa xubin haddii Ilaahay idmahayo ka imaatay miida afkooda ama labeenta afkooda. waana xubin aan ugu talagalay inay dadku ugu yaraan wax un ka fahmaan. markaan ku leeyahay ugu yaraan inay wax ka fahmaan waxa weeye xubintu wajiyo fara badan ayay leedahay. badanaa waxay xoog saartaa nolosha bini'aadamka ee caadiga ama nolosha gaarka ah ee dadka Soomaaliyeed, taasoo waxyaalo fara badan ay u yihiin sal. waxaa jirta xubintani inay tahay xubin haddii Ilaahay idmahayo kor iyo hoosba u dhex gasha nolosha qaybaheeda kala duwan. xubinta murtida maantana sheekada aan kusoo qaadanayno idamkiibi waxaa la yidhi saddex ma gafaan. macnaha saddex ma gafaan. saddexdaas waxaa weeye hawsha ay qabtaan kuma gafaan. waxaa weeye saddexdaas qof hawsha ay qabtaan ku gafin: qof guule aaminay, qof dhul ganay, iyo qof keligiis garamay. saddexduba ma gafaan ayaa la yidhi. haddii tusaale yar aan u soo qaadanno oo balan isku dayno inaan haddii Ilaahay idmahayo aan jeexjeexno ama aan balballaadhino hawsha. horta ereyga gaf waa erey noocyo badan. wuxuu noqdaa dembi oo mar wuxuu noqdaa dembi, marna wuxuu noqdaa waayitaan, marna wuxuu noqdaa haddii Ilaahay koo idmahayo wixii aad raadisay oo aadan yoolkiisii helin. marka saldhigiisu waa labo: waa gaf oo dembi inaad gashay, waa mar labaadee inaad wax raadisay oo aad weyday, waa mar saddexaadee tuuryo inaad la gaftay meeshii aad la rabtay iyo yoolkii aad damacsanayd. saddexdaas qodob ayuu galaa ereygan la yidhaahdo gafku. waa midka ugu weyn ee ugu dhibka badani waa gafka laga galo xagga diinta, nolosha Ilaahigii ku uuntay, iyo dembiyada khaladka ah oo lagu dhaco. taas ayaa gafka ugu weyn. marka waxaa la yidhi saddex ma gafaan. waa saddex ma gafaan: qof guule aaminay, qof dhul ganay, iyo qof keligiis garamay. saddexdaasuba ma gafaan. qof dhul ganay waxaa weeye ruux intuu waran qaatay ama qori qaatay dhulka toogtay oo isku dayay inuu dhulka toogto. waa ka koowaad. waa midka labaadee waa qof dhul haddii Ilaahay ku idmahayo waa qof haddii Ilaahay idmahayo damcay inuu keligiis garamo oo uusan intuusan horta garta weyn gelin oo isagu keligii garamo. waayo markaad keligaa garanto waxaad ogaan kartaa meesha ay ka jaban tahay gartaadu ama meesha khaladka aad ka gashay. waxaad kaloo ogaan kartaa qodobka lagaaga garheli karo ama lagaaga rayn karo. waxaad kaloo ogaan kartaa meelaha aad golduleelada ka leedahay, taasoo ah meel lagaaga soo dusi karo ama lagaaga garheli karo ama gartaadu ay ku noqonayso mid jaban. marka qofka saddexaadna waxaa weeye waa mid guule aaminay. waa inaad Ilaahigii ku abuurtay aaminto oo aad amaradiisa qaadato. haddii mar qofku eebbihii uuntay aamino oo amaradiisii qaato, dariiquu yidhi marna uu maro, dee qofkaasu ma gafin, maadaama oo Ilaahi subxaana watacaala uu rabo inaynu hogaansano, aan addoomihiisa noqonno, aynu ahaano kuwo dariiqii loo jeexay ee diiniga ahaa amarkana laynagu siiyey kuwa raaca inaan noqonno ayuu eebbaheennu rabaa. gaf laga galo eebbaheenna gaf ka weyn adduunka ma yaallo, mana jiro, mana imaan doono. marka waxaa weeye haddii Ilaahay idmahayo mar haddaad guulle aamintay ood amaradiisii qaadatay oo aad adeecday oo diintiisa ku toosnaatay ood is ilaalisay, dee maadan gafin ayay ka dhiganta. mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maantu waxaa weeye nabadi waa sad. nabadi waa sad. iyada lafteeda ayaaba nabadda sad ah oo waxaa la yidhi waaba qayb aad heshay ama waa faa'iido kuu soo korodhay. nabaddu waa sad. nabaddu